markaad ku dhahdo aadan isugu dhownahay wejigiisaan fiiriyay wuxuu u ekaa dooral dubayo kale ma laga yaabaa muraad inuu qorshaheena ogaado nagada yaa akhay shaki kuma jiro maanta shaqadii koowaad inaad ka baxsatay ibraahim run ahaantii aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinaya ilaaha igu og maanta wax walba haddaan haysan lahaa waa ku sii lahay waa ku baryaa sheekadaas mar dambe ay xasuusin صاحبك داقدو كاجقوا يا محسمينو يا أبو سحنو كوفيرنا أبو هذا وإنا 10 لما إلى بانا نودقنا واكو بريا وحسمي مسيرك اسكولي ذا صح صدق وحنا ملينا ما أنت فرحت درتد إن الله أنت لكن أديك هل مدي سمي هل مرحب إسي إشمي كده بنسك دقاق أوكي وحشمس ديارة وتصومع halkan maxaad ka qabanaysaa amar la'aan xafiiskayga soo galaya ku dhahay aniga hadda leeb albaabka gargaraacay maxaad u garaaci weyse horta fursad aan ku gargaraacay si albaabka ka gudubay maxay u timid aniga waxaan rabay yarka loo keena dhanka xayeysiinta shirkadda magaciisa muxuu ahaa ibraahim ahaa waa isaga naftarkiisa adiga soo ma rabin ninkaas inaa heshiis la gashid mise ma rabtid adiga arrintan arrimaha ma ka fikirin miyaana mudane muraad oo ku baryaa wax le un leedhahno saa markaa aniga waa ka cabsanaa mogtahay meel igu sheeg durug mudane najaad xafiiskiisa ayuu ku jiraa xanaaqan wejigaaga aan ka arkay aniga maad ii xanaaqsan tahay mise dhan kale ayaad ka xanaaqsan tahay okay middan waa gartay si wanaagsan middeeda kale aawa maxaa loogu dari waayay saddexda kale ee modulistayaasha ahaa adiga ma naga tagi kartaa haa maxaa diida waa idinka tagayaa qofkani shaqaale aan u baahnayn miya laakiin saxiixa ka hor maxaa isaga fiirin weyday walaalka hortiis inaan kugu sheega ayaan diidanaa ninkaas inaanan ka helin laakiin adiga ay fahmi waayna laakiin ninkan aqoontiisa iyo CV-giisa markaan eega waa nin kasta war aniga shaqadiisa iyo aqoontiisa wax iga gala haba yaraatee ma jirto ninkan aniga aan bar rabinba absolutely sababtoo ah wuxuu ila egyahay nin aniga shakhsiyad ahaan halis igu ah marka ninkaas oo kale uma baahni inuu ila shaqeeyo okay yaa rabbi maxaan sameeyaa akhi intaan shirka ku jirnay ayaa la rabay inaad adiga iyo waxan ka hadasho laakiin markii ay sheekadaba xayaad soo gashay ayay wax walba isbedeleen xayaad haddii isla imaan lahayn waxaan ma dhici lahayn yaa akhi xayaad arrinkan maxaa ka quseeya xayaad shaqaalaha shirkadda ayay ka mid tahay sheekada meesha ka socotana waa ay fahansantahay way ka dharagsan tahay haddii ay ka mid tahayna haddii ka mid tahay saaxiibtinimo ayaa ka dhexaysa xiriir jecel ayaa ka dhexeeya xala waxyaabihii ay sameeyeen waa yaabaysaan kuri miisay ku boode waa ka daba boodaa sariirta hoosteeda gele waa ka daba bes bes hee arrinkaas aniga maxaa iga quseeya xiriirkii isaga iyo xayaadka